shirkii markii naloo furay baa dacwo laysku bilaabay gaaladaa loo dacwoonaa oo ilaahay igu ogyahay waa wax waxaa leeyahay galmudug puntland ay dacweyne puntland galmudug ay dacweyne labadoodaba dowladda federaalka ay dacweynayaan dowladda federaalka iyagay wada dacweynaysaa nimankaana qalin iyo buugaysa waa qoranayaan waa exactly waxa hadda socda qof walba iyagu u dacwoodaa including the president aniga marka inta isayn waayaan iska istaagay marka nin marka kolley waa taqaanaan hadda dadkoo dhan waa iswada yaqaanaane aadam aw xirsi waa taqaanaan aadam aw xirsi markaas aan filaya inuu guddoomiye gobol ahaa ana markaas baay baan ahaa aadam aw xirsi gacanta ay qabta xaggee u socotaa oo dhammaana isnaqaan war waxaan waa isaga tegayaa baan ku waxaan gaalada u wada dacwoonayo marka aniga waxaan islaa hoos baad u tiri baan islaayo kor baan waayaa la igu yiri maxaa qoladii wasaaradda arrimaha gudaha ka socto meesha fadhi aniga marka guddoomiye gobolaan ahayo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaana inta xanaaqaan marka waxaan doono isaga hadla waxaan ku iri wiilashaan cadcad maxaa ugu dacwoonaysaan maadinka ma isxallisaan maamul goboleedka xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ma idinka xiran yihiin adinkana maxaa maamul goboleedyada intaanu dhibaatada tabasho ah qaba maad la hadashaan la fariisa maxaa ula sugaysaan adinkoo dhan intay gaalada meesha soo fariisanayso waaye nin ingiriis oo markaas safiir ahaa baan ku iri cabinetka UK markay isdagaalaan Ban Ki-moon miyay u dacwoodaanaan ku iri markay wax isku qabsadaan Ban Ki-moon markaas UN-ku madax u ahaa haddaad xusuusataan you complain to Ban Ki-moon markaa isqabataan adiga cabinetka UK mayo dha waxaan ku oranay mayo dad waaweynaatihiin ummadda ka xishooda waxaan dhaqan maaha waxaan then you would think in dadku inta isku yaxyaxaan ay bismillah maanta waa ceebowdeen isdhahayaan ma ogtahay no nothing waxba ma dareemin these are dadka markay diyaarad soo raacayaan gaaladan aad u jeedo xamar iyo soo aadayo waxay leeyihiin let's have a day and two with the idiots waa ka soo noqonaynaa sidaas ku soo baxaa inta u dacwoon sometimes kuwa qof markaas ka dacwoonaya waxaa la leeyahay okay waayahay waa dhamaatay ingiriis jajaban oo rafaadsan inta kula hadlo turjubaanna ma ogola wuxuu isu haystaa in ay wax ka halaabayaan title-kiisa hoos ugu dhacayo u haystaa markaas afartii u yaqaan inta isku kabkabo run iyo been inta isku dara marka dambe la leeyahay waayahay hebel waa xun yahay sidaad sheegtay let's assume inuu xun yahay aan ka soo qataada aan kugu raaco maxaa adiga ku bedelaysaa waxba ma hayo markii horeba wuxuu ku soo baxay inuu ninkanna wax ka sheego odayaashii hore oo dhihi jiray waxay naga dhahaan baan wax ka dhahaynaaye noo geey in la eedo waa wax saxa because wadankay ka muuqataa dad wanaagsan hadday aan lahaayeen shaqada ku fiican dadkooda ka naxaya wadaniyiina ilaahay ka baqaya wax badan baa isbedela markii dad walbo wanaagsan wadankoodana waa wanaagsan yahay ka naxaya wadankooda maxaa keenay inaan u qaxno wadan kale qof wadankiisa bilaash uga qaxaya ma jiro hadday taas jirto qatariyiin iyo imaaraatiyiin soo qaxayaad inta ku arki lahaydeen iyo British iyo Maraykan soo qaxaad Soomaaliya ku arki lahaydeen no they're not ma imaanayaan marka dad baa keenay in la qaxo I don't think dhalinyarada inay yihiin dadkaas marka in la eedo wax laga sheego waa furanta